labaatankii bishii 11 2025 maxkamadda darajada koowaad ee degmada Gaalkacyo oo fadhigeedu u dhan yahay kana kooban garsoore Cabdiqani Sheekh Maxamuud iyo garsoore Xudayfi Abshir Cismaan anigoo ah garsoore Maxamuud Cabdisalaam Cabdille gudoomiyaha maxkamadda una kaalinahayo kaaliyaha laanta ciqaabta kaaliya Sidiiq Saacid Yuusuf waxay u fariisanaysaa maxkamaddu dhageysiga garmaqalkii koowaad ee gal dacwadeedka nambarkiisu uu yahay 109/2025 eedaysanana ay ka tahay eedaysanayaasha kala ah eedaysanaha koowaad Hodan Maxamuud Diiriye 34 sano jir ah ina Xaawo Xasan ku dhalatay xamar degan Gaalkacyo eedaysanaha labaad Cabdicasiis Nuur Xaashi Calas 65 sano jir ah ina Ardo Maxamed Cali ku dhashay Gaalkacyo degan Gaalkacyo fadhiga dacwadda waxaa goobjoog ka ah oo ka soo qayb galay xafiiska xeer ilaalinta gobolka Mudug oo ku matalaya dacwadan xafiiska xeer ilaalinta guud ee dowladda Puntland eedaysanaha koowaad eedaysane Hodan Maxamuud Diiriye 34 sano jir ah ku eedaysan qodobka 434 eeda koowaad eeda labaadna qodobka 164 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qareenkiisa qareen Cabdicasiis eedaysanaha labaad Cabdicasiis Nuur Xaashi Calas 65 sano jir ah iyo qareenkiisa Cabdiqani haddaba intaanaan u gudbin dhageysiga dacwadda waxay maxkamaddu baraarujinaysaa arrimahan soo socda kow ugu horreyn fadhigu waxa uu u furan yahay dhageysiga dadweynaha si waafaqsan qodobka 96 ee heerka habka ciqaabta Soomaaliyeed hase yeeshee inta fadhiga lagu jiro waxaa mamnuuca inuu qof iska baxo ama iska soo galo ayadoo uusan idan ka helin maxkamadda in qofka soo galaya ama baxaya uu idan ka qaato waxaa reeban ku hadlidda telefoonka isticmaalkiisa sheekaysiga iyo la falgalka dacwadda wax kasta oo habsami u socodka dhageysiga garmaqalka waxa la yiraahdo carqaladeynaya maxkamadda iyadoo oo dabaqaysa qodobada 97 98 99 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxay faraysaa in loo hoggaansamo awalan awaamirta maxkamadda in haddii uu jiro caruur da'doodu ay ka yarahay 14 sano ay garmaqalka ka baxaan ciidanka waxay amran yihiin qofkii u hoggaansami waaya waxa la yiraahdaa awaamirta maxkamadda inay waxa la yiraahdo tilaabo ka qaadaan dhaqdhaqaaqu dhammaan inuu istaago waxaan u gudbaynaa dhageysiga dacwadda annaga oo ku bilaabayna inaanu eedaysanayaasha u akhrino eedda xafiiska xeer ilaalinta si waafaqsan qodobka 103 midna ugu akhriyayna waxaanu ku bilaabaynaa marka koowaad eedaysanaha koowaad Hodan Maxamuud Diiriye hodan waxaan ku akhriyayaa eedda uu kugu soo eedeeyay xafiiska xeer ilaalintu si waafaqsan qodobka 103 ee heerka habka ciqaabta Soomaaliyeed eedda markaan ku akhriyo
waxaad uga jawaabaysaa 3 jawaabood midkood si waafaqsan qodobka 104 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed eeda la igu soo eedeeyay ma gelin waa galay iyo dood baan ka qabaa koow waxaa lagugu soo eedeeyay hodan inaad dil kas ah u geysatay qofta la yiraahdo marxuumada Saabiriin Saylaan Cabdille inaad dil kas u geysatay si waafaqsan qodobka 134 waxaa lagugu soo eedeeyay inaad bulshada khatar ku tahay sida ku cad qodobka 164 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed haddaba eedaa lagugu soo eedeeyay waxaad kaga jawaabtaa 3 jawaabood midkood si waafaqsan qodobka 104 ma gelin waa galay iyo dood sharciya baan ka qabaa dilka sabagaysanin kasna uma dilin dil cadna wax dil kas ah aan geystay ma jirto eeda la igu soo eedeeyay waa galay eeda la igu soo eedeeyay dood baan ka qabaa ma gelin dil cad oo kas ah ma geysan wax dil kas ah geystay ma laha ma gelin fariiso waxaan u gudbaynaa eedaysanaha labaad Cabdicasiis Nuur Xaashi Xalas Cabdicasiis waxaan ku akrinayaa gooba xafiiska xeer ilaalinta uu kugu soo eedeeyay waxaa lagugu soo eedeeyay eeda koobaad qodobka 432 fabradiisa labaad oo dhigahaya si xun ula mucaamilid caruur iyo xubnaha qoyska dadka yacni qoyska ka tirsan qodobka labaad waxaa lagugu soo eedeeyay dayacaad sida ku cad qodobka 448 fabradiisa koowaad eeda saddexaad waxaa lagugu soo eedeeyay inaad bulshada khatar ku tahay maadaama dayacaadaad samaynaysid hadda waxaa la yiraahdo mas'uuliyadaadii ku ciyaaraysid sida ku cad qodobka 164 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waa fahantay Soomaaliya eeda lagugu soo eedeeyay waa fahmay haddaadan fahmin waan kuugu celinayaa waa fahmay waayahay haddaad fahantay waxaad uga jawaabtaa eeda lagugu soo eedeeyay sida waafaqsan qodobka 104 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ma gelin waa galay dood baan ka qabaa ma gelin dambigaas lagu soo eedeeyay fariiso waxaan u gudbaynaa doorka xafiiska xeer ilaalinta waxaan ku soo dhaweynaynaa xafiiska xeer ilaalinta si waafaqsan qodobka 114 si ay u jeediyaan eedooda iyo cadaymaha eedooda waa habeenka marxuumadda meydkeeda guriga laga saarayay ay ku nafbaxday ku nafweyday looga naf saaray guriga labada eedaysane gurigaana waa guriga labada eedaysane taariikhdu waxay sheegaysaa 12 saacaduna waa 3 saac 26 daqiiqo waxa hadda soo galaya waa eedaysana waa la wacay waxa loo sheegay meydka gabadha albaabku waa u xiray gurigu galay sidii markaas wuxuu fiirin karay kaamirooyinka guriga yaala wuxuu markaba ilaamaha ammaanku wuxuu wargelin karay ilaamaha ammaanka falka meesha ka dhacay buu si degdeg ah wax uga qaban lahaa balse ma aysan dhicin waxay ku tusinaysaa inuu raalli uga ahaa inay gabadhu tacadiga marto weli wuu maqan wax canaana kama maqlaysaan kaamirada waa uu soo baxay xarigii buu dharka ka gurayaa si uu ganjeelka u furo gaarigiisana u soo geliyo isagoo awoodi karay inuu bannaankaba ka saaro meydka gaariga maadaama idinma yar
albaabka sare baa qafilan waxaa loo doono furihii si qafilka sare looga furo wuxuu u egyahay nin caadiya oo hawsha meesha ka jirtaba la qabsaday isagu noo keeno cid uu maagayaa ma jirto cid uu su-aal weydiinayaana ma jirto see wax u dhaceen cid uu leeyahay ma jirto waa gabadhii meesha meydka waxaa ah waa gabadhii awowga u ahaa waa gabadhii rajada ahayd waa gabadhii agoonta ahayd waa gabadhii uu isagu gurigiisa keenay gaarigiisu soo gelinaya markaan halkaa markay hawshu marayso waxaan dareemi karnaa qof yimid gurigiisii ilmo yaroo meyda u yimid awoowo uu u yahay mas-uuliyaday ka saarnayd rajiyo agoonahay gaarigii uu soo xareeyey si uu meydka ugu qaado isla markaba wuxuu xasuusanayaa inuu ganjeelka xiro si aynay u aragi dadka kale oo meesha maraya waxa gaariga la saaraya markaba wuxuu xasuusanayaa inuu ganjeelka xiro haddana uu xiraya gaariga oo midba mar way u jiifinay dadka dhammaan halkaa jooga ee hooyada leh aabbaha leh awlaada leh ma u malaysid dad geeriyi gashay ma u malaysid dad gurigooda lagu dhintay taasi waxay muujinaysaa dadkaasi ama caruurta gurigaasi dadka ku nooli tacadiga ay la qabsadeen ee gurigaa ka jiray oo ay u dhimatay maxamed saabiriina markaba caruurtu waxaad u malaysaa inay u tababaran yihiin waxay bilaabayaan inay caddaymihii kala tuuraan markaba ina yar baa guriga gelaysa bicihii gabadha lagu ceejinaya bax ka mid ay soo qaadaysaa gidaarkay ka tuuraysaa waa ay ku soo noqonaysaa mar labaad bay ku celinaysaa markaba waxay bilaabeen inay caddaymihii tirtiraan tuurtuuraan
wata dib baa loo noqday waxaa la wixii guriga caddayn iyo wax laga heli jiray kaliba waa ay dhaliideen markii laga reebo intan baaristan ku soo helnay oo iyagu intay dhaliideen ama dib loo soo celiyey intaa kadib waxaan u gudbaynaa whatsappka eedaysanaha labaad moobilkiisiina waa kana waxaa ugu qoran hodan maxamuud diiriye fariintii ugu dambeysay oo ay isku direen waa 11 bisha 11 waa markii ay marxuumadu sakaraadka ahayd ee naf guraysay ee la jir dilaayay codada kanina waa codadkii aan sheegnay ee ay u didhay gabadha kale ay ninkana u soo dirtay mar labaad intay qofkii ka soo qaaday ee u didhay bay mar kale ninka ku soo celisay kor u soco waxaa jira labadii muuqaal oo markii whatsappka lagu furay kombiyuutarka uu yaro cuslaaday oo muuqaaladii mar labaad ma soo degayaan laakiin ayagoo degsan bay maxkamaddu arki kartaa oo jaadkooda ku dhex jira balse codadku waa ay degsameen waana la daarayaa laakiin labada muuqaal oo midna baraha bulshada yaallo oo bishii 26 mid iyo kan kaleba waxay u didhay whatsappkiisa wuxuu hayay xogta wuxuu la socday jirdilka tacadiga dhibaatada meesha ka socota kanina waa moobilkiisii maxkamadduna ayada indheheeda ku furayso ku arkaysa kanina waa warqadda dhimashada marxuumadda ee cisbitaalka ka soo baxday waxaan halkan ku caddaynaynaa inay marxuumadda magaceedu kor ku xusan yahay la keenay cisbitaalka qaybtiisa gargaarka degdega iyadoo meyd taariikhdu markay ahayd 12 bishii 2025 saacadu markay ahayd 10 oo buura marxuumadda waxaa kaga yaalay dhuunta dhaawac u muuqday xarig lagu ceejiyey wejigana waa uu bararsanaa sidoo kale labada gacmood waxaa ku yaalay dhaawacyo u muuqday xarig lagu xiray waxaa kaloo marxuumadda ku yaalay dhaawacyo fara badan oo ah kuwa dhiigaya iyo kuwa markaa biskooday kagana yaalay madaxa labada gacmood dhabarka iyo labada lugood dhammaan warqadaas ku qoran ay dhakhaatiirtu qoreen waxay ka turjumaysaa cadaymihii aanu maxkamadda la wadaagnay hadday ahaan lahayd markii ay xirxirnayd hadday ahaan lahayd markii ay waxa weeye qaraacidku ku socotay hadday ahaan lahayd markii jirkeedu dhaawacyada ku yaaleen markay naf baxaysay intaba sidaa darteed xafiiska xeeraalinta gobolka mudug waxaa u caddaatay in dambi dhacay labada eedaysanana ay yihiin eedaysanayaashii galay dembigaanu ku soo eedaynay si waafaqsan 110 maxkamaddu way mahadsantay waayahay bismillahi raxmaan raxiim waxaan ugu gudbaynaa haddii ilaahay idmo difaaca eedaysanaha waxaan u yeeraynaa marka koobaad eedaysane hodan maxamuud diiriye isaag waxaan u gudbaynaa marka dhageysiga waxa weeye difaaca eedaysanaha hodan waxaad joogtaa maxkamadda darajada koowaad ee degmada Gaalkacyo eedda lagu soo eedeeyay oo xafiiska xeeraalinta lagu soo eedeeyay waa dhageysanaysay cadaymaha ay soo bandhigeen awalan waxaan rabnaa ma waxaad istifaacaysaa adigoo dhaaranaya mise dhaar la'aan baa istifaacaysaa adoo dhaaran miya maxaan dhahayaa يعني ما واحد دارنا يساعدك واستفاعية يعني دار الآن وحقوقنا إن دارتك مركز استفاعي ست يوم إن هذا النار لبض وحقوقنا انتهى مركز من دار الآن باستفاعي سام سوى دارنا يساعد دارنا يسام حكوا دارنا يسام حكوا أوكي قرن ها way mahadsantahay maxkamaddu marbahdii noo jawaabtay jawaabta ugu dheedu waa qayb ka mid ah sharciga inay maxkamaddu ay codsiga aqbashay inay diido
intaan u gudbin 116 mar labaad maxkamadda waxaan ka codsanayaa haddii uu jiro confession laga qoray muwakkilkayga inay noo akhrido ama wax naga tusto confession garsooro laga qoray waxaan jeclahay inaad sidaad noola wadaagtaan xagga noola wadaagtaan ma jiro confession laga qoray eedaysane cabdicasiis nuur xaashi ma jiro confession laga qoray gudoomiye waa mahadsan yahay confession laga qoray ma jiro oo waafaqsan qodobka 68 habka ciqaabta Soomaaliyeed waayahay qodobka inaan kusoo laabto ma rabo oo ka gudbi doonaa difaacigan toos ugu geli doonaa laakiin qodobkaas waxaan yani maxkamadda u cadeynayaa sababta muwakkilka garsoore loo horkeeni waayay ayadoo la raacayo 48 saac ee habka ciqaabta ku xusan waxay cadeyn u tahay in laamiha amniga ay gacanta ku hayay in ay wax dambi ah ku waayeen haddii maartay dambi ku tuhmahayaan xitaa ugu yaraan ay maxgarsoore horkeeni lahaayeen si sharcigu u farahayo booliskii iyo CID-da uu sharcigu farahayo in qofka markii la soo qabto eedeysanaha isla markaaba sida ugu dhaqsiyaha badan la horgeeyo garsooraha awoodda u leh ama ikhtisaaska u leh taas darteed waxay ku tusinaysaa mar haddaan muwakkilkayga aan wax garsoore ah la horgeynin in ay meesha ka baxayso wixii uu ku soo eedeynaya xafiiska xeer ilaalinta qodobka intaasaan kaga soo gaabsanaya iyada maxkamadda nooga aqoon badan waayahay mudan gudoomiye iyo garsooryaal maxkamadda sharafta leh muwakkilkayga cabdicasiis wuxuu xafiisku xeer ilaaliyo ku soo eedeeyay 2 qodob ama si kala u dhahay 3 qodob qodobka koowaad ee lagu eedeeyay ama eedo koowaad u sameeyeen waxa ka mid ah 432 farqada labaad inta marka aanan gelin qodobadan waxay sharci ku yihiin waxay sharci darro ku yihiin waxaan rabaa markii la joogay 103 ee gudoomiyuhu akhrinayay eeda ugu jeedinaya muwakkilkayga wuxuu xusay dabcan inaad doontaan waa rajaynaya wuxuu xusay waxaa lagu soo eedeeyay buu yiri 432 farqada labaad oo sheegaysa si xun loo macaamilid buu gudoomiye farqadaasu sidaas ma ahan sidaasna uma qorno qodobka baa sidaa ah qodobka farqadu sidaas ma aha waxaan rabaa in sidaa maxkamaddii bulshadu ay fahmaan waay mudan gudoomiye farqada labaad ee muwakkilka lagu eedeynayo ee qodobka 432 waxay leedahay marka falku keeno waxyeelo khatar ah ciqaabtu waa xabsi 2 ilaa 8 sano markay ahayd bacda maqribka markay ahayd gabadhan 12 saac ay bar markay ahayd bay dharkeeda dhaqatay dharkeeda dhameysatay markay dharkeeda dhaqdo dhameysatay ee waratay bay waxay sameysay maqribka markii la tukaday kadib ganjeelka furtay albaabkii ka baxday hadee ganjeelka furtay albaabka ka baxday caruurta yaraa waa ka daba baxay anna qolka jiifka ku jira hadda qolka jiifka ku jiray ganjeelka jagtiisii maqlay wadan ka soo horjeedaa wadaday aniga waa isku dhaganahay waa orday waa baxay albaabkii baan istaagay mise 2 yar baa banaanka jira ayadana marxumadda albaabka geeskiisa taagan tahay waan soo xareeyay waxa ku yiri ilmaha maxaa uga daba bixi weeyda dad kolbaad ganjeelka furtay oo aad baxday maxaad ilmaha u soo xareen weeyday oo ilmaha wadada aad ugu sii deysay adigu waxbay dadway gununacda waxbay igu tiri xarood baan ku iri gabar baan u yeeray waxaan ku iri ma ordi karay ilmaha ii soo xaree way ii soo xareysay markaan guriga ku soo wada xaroonay shaabug yar aan haystay waxaan ku iri ma hadda ii keentay inaad caayidano maqlayo miciyaalka hortooda mikrofoonka afka saar bas shaabugii baan ku dhuftay markaan shaabugii ku dhuftay way igu soo booday gacantaysa igula qabatay marka gacantaysa igula qabatay shaabugii iskala kee qabatay ciyaalka banaanka joogeen koridorka dhexe ka dhanka jikada xiga ugu xirnaa kana waa xiray waxaan ku yiri manaa maanta igu soo boodaysaa saasan shaabugii igula qabsaday marka shaabugii igula qabsaday gacantiisaas ii qabatay ii laabtay hadee gacantiisa ii qabatay saa ii laabtay aniga waxaan sameeyay booliiska dhaqdhaqaaqa naga daaya bas markaas waxaan
sameeyey shaabuurkii iyadoo haysata ayna gacanteyda ay haysatay gacanteydaan bidix qaaday halkaas saa dhunta uga qabtay barandada darbigeeda waxaan taagnay koratoorka dhexe darbigiisa baa saa ugu qabtay dhuunteeda naya gacanteyda ii sidaa baan ku iri gacanteyda ii sidaa gacanta way iskula kaysii qabatay marka iskula kaysii qabatay baan gacanta saa ceejidu kusii iri haddaan kusii iri alaayahay gacanta waa kusii deynayaa isii daaba tiri waa sii daayay shaabuurkii baan gacanta midigtamka iisii daysaan shaabuurka ku haystay labaa u geliyey soco iga soo qabaysaan iri suuligay gashay way soo qabaysatay way soo baxday jikaday aaday way soo cashaysay way ii timid waxay igu tiri ayay waxaan rabaa kaniini madaxa ay xanuunaya waxaan ku yidhi kuuma kicin kara cishaha waxaad samaysaa iska suga cishaha iyo maqribka waxba uma dhexeeyaan maanta dhan ma qarqaynin karo maanta dhan waa isdaba taagneen waxaad samaysaa saabirina kuuma kicin kare sug baan ku iri cishahaaga oo tuko cishaha waxay igu tiri haddaad ii timaaddo tiraahdeed kac saabirina oo cishahaaga tuko waan kacayaa oo waa tukanayaa bas hayaa iri kaniinkii barastimool bay laqday joodariga oon ka soo qaadnay qolkeeda ay seexan jirtay bay seexatay 3 saac oo 10 dhiman markay ahayd oo ciyaalka cashada kala siiyay soo kala xareeyay oo waxa isir cishaha u kici hadaa isir cishaha u kici aan saabirin iri way kici weyday hadii kici weyday dhanka madaxan ka soo istaagay saabirin baa iri saana iri runteedu saasay ahayd ee runta u qanisan saamba soo iri way soo dhacday saan kala iri way dhacday markaas waxa uu wacay abuugeed waxaan ku iri gabadhii inay suuqsan tahay in kala ma aqaan way seexatay ishaan raba hadina u kiciyo gabadhii ma garan kara xaaladeeda noo imo uuna noo yimi sidaan labadeena waxaan ku geynay isbitaalka dowladda iskolsada dhimashana anigu meesha ma soo dhigan ayadoo nool baan sii deynay way qabaysatay way cashaysay wayna seexatay wax dhimasho ah iyo wax fargasho ah oo aan kala gaartayna ma aysan jirin waxaa halkan lagu soo bandhigay oo xafiiska xeer ilaalintu uu soo bandhigay muuqaalo muujinahaya gabadha oo xirxiran saabiriin oo jirdil uu ka muuqdo dhaawacyo dhabarka timihii laga xiiray bac ay ku xiran tahay oo dhuunta kaga xiran tahay waxa la yiraahdo ka waran arrintaas doctor anigu markaan xanaaqo waan xanuunsadaa markaan xanaaqo waxyaabaha badan hadda shaabuug waa la dhici jiray laakiin wax kale oo jirdil ah u geystay shaabuugkaas waa la dhici jiray dhabarka waxa kaga yaala waa shaabuugga la dhici jiray iyo gacmaha laakiin wax kale oo aan u geystay ma jiraan dhaawacyada adiga u geystay miya shaabuugga weeyaha mar walba way madax adkeed waxaan isugu imaan jirnay waa nadaafadeeda timaha waxa uga xiray waxay ahayd nadaafad darro nadaafadeeda wuu ka warqabaa awgeed wuu la socday nadaafadeedaas iyo tababarkeedaas waxaan ahayna iskuguma ana imaan jirin shaqo gurina iyo qaban jirin oo shaqaale ii joogay shaqadaana ayadaan ku tababarayay oo waxaan islahaa aad kaga faa'iidaysato wax cildigeeda u dhimaya ama wax nafta kaga qaada ahna anigu ku talagalkayga ma ahan gabadhan ayadoo nabad qabtay anoo nabad qabaana seexatay anna hargaha ayaa ku xiray lugaha iyo gacmaha uga xirnaa hargahaas ma garan karo hargahaas ma aqaan markaas ma aqaan maskaxdeeda say ahayd laakiin anigu marka amiirka qabay oo isugu kay dambeysay saas ahayd waana xanuunsadaa waana dhacaa maxaa kugu dhacaa waan dhacaa waa suuxaa markaa xanaaqana isaga waa ogyahay wuu iga warqabaa qafna lagama qaban karo wuuna la socdaa wuuna ogyahay xaaladaas waana xanuunsanahay waana miir doorsoomaa haddana dhiikar baan qabaa marka waxyaabaha aan sameynaya badanaa isma kontarooli karo laakiin waxa hadeer aniga iyada laakiin hadda xaqiiqda waxaa sheegi karaa markii maskaxdaydu caadiga ahayd gabadha caadiya iyo anigoo caadiya inaan kala seexano adiga waxaan su'aal sameeyay dadka kaliya weydiinay su'aal anagu yana weydiin gamiyan maranay marka waxaa jira nabaro biskood ah oo ay tilmaameen dhakhaatiirtii baartay nabaro dhaawac ah oo biskooday qaybahood oo ku yaala marxuumadda nabaradaas ka waran ayaga walaal halkaas
khataarka maaragtay khataarka maaragtay ku dhawaay afka mikrofoonka daaqada khataarkiisa bay maalin ayadoo qadaynaysa khataarkiisa u soo taagnaa madaxana waa ka xirnaa baa anoo qolkayga jooga qolka ciyaalka iyadoo joogta u yeeray adaa u yeeray xoogay u soo kacaysay baa khataarka halkaa ka galay anigu madaxeeda waxa kaga dhuftay jirta iyo waxaan u geystay jug ah anigu maalinkaas bacdal maqrib iyo bacdal cisho dhexdooda ah oo aan halkaa ciijada aan uga dhigay ma ahane oon aniga iyadoo isku soo bahalkeysanay ma ahane marka wax kale kuma waxaan shaabuuggaas la dhici jiray dhaawacyada arkaysidna waa يعني شابوغ مرر بدن ما لا dhici jiray markay igu markay salaada diido markay cadayga diido markay qabayska diido markay isugu madax istaagto igu madax adeegto waa la dhici jiray shaabuug fiidiyowyada ayaa duubay ya fiidiyowyada ayaa duubay muuqaalada laga duubay marxuumada iyadoo dhaawacyada ku yaalaan oo xirxiran yaa duubay ma jiraan fiidiyoodaas ma garan karo wax duubay iyo wax halkina kuma ogeyn moobeelkaaga waxay tilmaameen xafiiska xiraalintu in moobeelkaaga laga helay muuqaalada kuma uusan jirin walaa moobeelkayga kumana bahalkiyeysnayn lagumana bahalkiyeynin maalinka hadda wiilka uu hayay muxuu ahaa CID-da kuma aysan jirin moobeelkayga waa wada baarnay aniga wiilka CID-da meesha waxay tilmaameen muuqaalada inaad dhiladay ka tirtiday telefoonka dibna loo soo celiyay isbitaalka markaas saa u tegay waa laga qaaday moobeelkayga xilli aan wax dhiliido iyo xilli aan wax nadiifiyo midna kuma jirin marka ay guriga xaaqayso qofka la hadlayo oo muuqaalka duubaya adiga waxa u diray habaryarteed iyo odayga labadaba ana oo la wadaago u diray sababtu maxay tahay gabadhaas ay soo wacday waxay igu tiri habaryar waxma ma qaban karto waxma maqasho waxa markaas ku yiri anigu waxaan u diray way qabataa oo haddana tababarkii baa ku socda si tiri habaryar ay tusi kartaa bay tiri saanaha ayadoo shaqaynaysa fiidiyoo kaaga soo duubaya ayadoo tirtiraysa qolkii aan ku jiray anna aan qadada ku karinayo wayna badnaa fiidiyooga waa la kala jaray waxa ku jirta 3-4 gabdhood aan dhalay midna dhaqayso midna suugo jarjarayso oo ila karinayso qadada labana ay muxuu ahaa kabsar iyo basbaas iyo tumayaan fiidiyooga waa la soo kala jaray anana gabadha qardhid joogto marka qofka ay gabadhu dhabarkeedu muuqdo nabarada ku yaalaan oo galoofiska aad qabtid ka waran isaga muuqaalka markaas waa marag ka dhigay aan dawo aydiin ah uga dhaqayo adiga dhakhtar miyaa tahay ya dhakhtarnimo miyaad soo madhay oo nurses may aydiin iyo waxaas soo fatay faashad iyo dhabarka uga dhaqay nabarada aad ka dhageysay adaa ku dhuftay Soomaa waa shaabuugaha nuur xaashi ala Soomaa saas weeye inta sana jida 75 ku celi inta sana jida 75 baa jira way khaldeen 65 bay ka dhigeen kontonkii baan dhashay bishii shanaad hadaasiis saabiriin maxaa u tahay saabiriin awowgeed baan ahay awowgeed baan ahay dhinaca uga tahay oo ma dhanka hooyo mise dhanka aabe dhanka aabaan waxa dhalay saabiriin hooyadeed waxa dhalay walaalkay baa dhalay Cabdirasaaq Nuur Xaashi baa dhalay anigana Cabdicasiis Nuur Xaashi baa la yiraahdaa saabiriin goorma guriga ayaa la keenay wallahi taariikhda ma xasuusto laakiin ugu badnaan 2 bilood bay nala joogtaan doonaa ku soo celi ma aanan qorin waqtigii noo keenay ma aanan qorin أنا بسوق هذا لكن بدنا لبض بلود يملا شوكتها بانو مغيرين saabiriin waxaa la soo bandhigay oo xafiiska xeeraalintu uu soo bandhigay iyadoo ay ka muuqdaan dhibaatooyin aad u fara badan oo dhaawacyo ay ku yaalaan waxa ay soo bandhigeen muuqaal ka daalayrka muuqaal adiga lagu soo diray qaybahood lagula wadaagay oo ay kula wadaagtay eedaysanaha koobaad hodan bal ka waran arintaas iyo waxa aad ka ogtahay bismillahir rahmaanir rahiim horta waa ka tacsiinaya arinta dhacday oo anigu aan qayb weyn waliba ka ahay awoogeena ahay ehelka inta meesha soo khusaysa iyo magaalada waa ka tacsiinaya aniga waa khusaysa aniga awoogeena ahay saabiriin gabar walaashay waxay ii yeertay
oo ay tiri oo soo korisay ayada waxay tiri walaalow gabadhii waa qaangaartay waa weynaatay anigiina waa duqoobay waqti uma hayo waa iska dhacdhacahayaa waa xanuunsanahay hadda meel baan ku kufahayaa marka waxaan rabaa gabadhii inaan igala wareejido aan kuu keeno saasaa baan dhahaa waayahay hodan baan u imid waxaan ku yidhi walaalay gabadhaasaa reerkii ku soo saa'idaysa awowgaan u ahay hadda sidaa ula socdo maxaad u malaynaysaa waxay tiri keen carruurteeday ka mid tahay gabadhu carruurteeday ka mid tahay gurigeeday joogaysaa reerkeeday ka mid tahay waxay carruurta qabaan bay la qabaysaa sidii baan maalin iyo laba miya ka bacdi aan u tegay gabadhii walaashay ee gurigeedii aan u soo kaxeeyey aan saabrin guriga ugu keenay sidaasay saabrin waxay u ahayd carruurteeda carruur ka mid ah gabdhaha iyo gabdho ka mid ah gurigaan imaadaa haye awow iyo waran fiican anigu waa imaan aniguna subaxii guriga waxaan ka baxaa 7:45 ilaa 7:50 baan ka baxaa carruur baan quraac u qaadaa iskuulka yameelka dhigata aniga mid aan dhalay baa israacna carruurtan u geeyo waa quraacda saan subaxii uga baxo 12 barkaan guriga imaadaa ayagoo carruurtii qaarna joogaan qaarna iskuul ku maqan yihiin qaarna hadda iskuul diyaar u yihiin marka waa iska salaamaya gurigaygaan iska galaa waxaan ka baxaa guriga haddana markaan casarka tukado guriga casarka guriga ku tukada 9 saac bar baan ka baxaa waxaan imaadaa habeenkii adigu 3 saac iyo 2 saac bar ilaa 3 saac waxa u dhaxeeya haddii aan odayaal helo aan la sheekaystano 3 saac baan ku gaaraa haddii kale 2 saac bar baan ku imaadaa had iyo jeerna waa soo waca guriga markaan soo socdo waxaan u baahan tihiin inta aan ka maqnahay marka salaada laga soo baxo waxaa weeye intaan ayaga waxu soo qaadayo gurigaas 13 qof ayaan ku koriyey 11 anigaa dhalay nina adeer baan u ahaa iyadaa dhashay anaa soo koriyey isagoo 2 jiraan guursaday hooyadiis midda dariiqaaba ka soo qaadnayba iyadoo mataqaana guriga islaamka gadaashiisa luqluqoo lagu hayo yaan ka soo qaadnay anigaaba korinay hadda 3 sano iyo bar buu jiraa marka 13 kaas bar anigaa soo koriyey gurigana intaas saacadahaasaan ka baxaa saacadahaasaan ku soo noqdaa wax dhibana gurigaas hadda gabdhaha yaryaroo la edbinahaya waa arki jiray waana ii muuqatay inta laakiin waxaas nabarro ku dhacaya ilaah bay iga tahay inaanan ka warqabin lana socon waana gaba weyn oo haddii xijaaban weeye ma odhan karo haddaan shaki qaba haa laakiin ma odhan karo saabrini maxaa maanta lagugu dhuftay maxaa ku dhacay hadday carruurteedii ila mid ahay 26 bishii 9aad 2025 2:10 daqiiqo oo duhurnimo waxaa jira muuqaal lagu soo diray oo ay ku soo diray eedaysanaha koobaad hodan muuqaalkaas oo inuu jiro iyo in kale ka waran horta muuqaalka waa jira waa ii soo dirtay waayahay muuqaalka waxaa ka muuqday sida xafiiska xeer ilaalintu uu soo bandhigay gabadha oo la ciqaabayo weliba hadallada eedaysanaha koobaad ay leedahay ciqaabtaadii maanta intaasay ku eg tahay muuqaalkaa ma ku soo gaaray way soo gaaray waa ii soo dirtay weliba shaqaan ku maqnaa markaan guriga imid iyadoo lisaan u tababarahayay muujeedi waa tababarahayay xataa waa dhegaystay anoo la fadhiyaan dhegaystay way leedahay meeshaan ka bilaabay ka bilow meeshaan ka soo bilaabay ka soo bilow iyadoo saasaan u tababarahayay bay tiri sidii wax u barato markaasaan anoo weliba baradada la fadhiyaan ku yidhahda hodanaya walaalay hadalladan waa hadalla xanaf leh baan ku yidhi hadallada xanafta ka diyaarota intaasaa la kala gaarta saa u tababarahayay ma ujeedaa bay lahayd aniguna hadda waa gabar yaroo dhul xatirtiraysa waa heli qof la garaacayo meesha sawkana kama muuqan ka ii soo dirtayna tabtaasoo kale goorma ayaa lagu sheegay gabadhu inay dhimatay adiga anigu bisha 3 baan kala tagnay xaaskayga hore hodan maalin isniina 7 saac iyo 40 daqiiqo markaan guriga imid iyaan walaacsanay bes furaaqdeedii bay tiri waana wax soo socday way aniga iyada wax naga dhaxeeyay way arrintan wax shaqo kula ma ahayn dabeecad ahaan iyo 15 sanadkii 16 baa noo socday markaasaan waxaan fikiray waxa ay hadii dalbatay furma ay gabadhan iska furto jaashiiso bes waraaqdii baan u qoray 7 saac iyo 45 daqiiqo guriga waxaan u maleynayaa 1 iyo 50 inaan ka tagay ziritaan waxaan u aaday Golden Hotel isniintii ilaa iyo 4 ahayd ilaa iyo 4 iyo 11 iyo maaqa 12 waxay ahayd halkaasaan seexanayay arrimo kale oo magaalada ka dhacaan ku jiray hawshaasaan ku hawshaysnaa marka 4 habeenkii 3 saac iyo daqiiqado 15 ii yarta anigu qolkaygii joogay ay tiri cabdi casiis oo saabay waa dhimatay
saas ahaa maxaa ku dhacay waxay tiri waa cashaysay xajeere weliba xajeere cuntay bay tiri waa seexatay madaxaa liga hayaa bay tiri waa seexanahaya markaasaan ina bay tiri cishaan kuu toosinahaya sidii bay ku seexatay hadday soo kacdayna qoftii fargalaayso maaraysa saas ahaa haddaan imaanayaa baan ku igi waxaa samaysaan baan ku igi weli u raaciyo farmashiyaha idiin dhow inta tagtaan dhalinyarada farmashiistayaasha ah bal wax CPR yaqaana oo wadnaha garaacidiisa inay suuqdaa laga yaabay wax CPR ku sameeya uga yeera baan ku igi anna waa soo socday sidii baan guriga ku igi gurigaan soo galay gaarigayga baa banaankan uga tegay waa u imid ayadoo saa u jiiftaan u imid qolsiskaan ka seebay ahayd axwaasheeda markaad dad timid qof jiifoo kale ahayd qof jiifoo xargama ku xirnaayeen maya wax xargoo ku xirnaa ma jirin joodari bay dhulka ku jiiftay ha joodari bay dhulka ku jiiftay wax xargoo ku xirnaa ma jirin marka bolsiskeedaan fiiriyey gacanteeda ma fiirsa gacanta waaba qabtayba gacanta banaynay neefsanayso wadnuhu garaacaya fiirshay halkaanaan ka taabtay 2 jeer aan xabadka ka garaacay CPR ku sameeyey markaan wax response ka waayay jawaab ka waayay yaani markaan waxaan geeyay isbitaalka sidaasaan gaariga ku soo geliyay hadda xeeraaliyo markuu lahaa gaarigan uu qarinahayaa uu leeyahay gaariga kursiga dambe noo furmo waayay noo seexan waayay kan gaariga soo geliyay marka kursiga dambe marka haddii laga gelinayo waa inuu helaa dardhigii baa i qabtay markaasaan gaariga inta galay haddana gadaal u soo bixiyey sidaasaan passengerka dambe aan uga saarnay meesha sidaasaan isbitaalka ku geeyey emergencygii baan geeyey neersiga dhakhaatiirtii baan isugu yeeray nin caasay oo madow oo dhakhtaraa meesha joogay waxaan ku yidhi walaalo waxaa noo caddaysaan baan ku yidhi gabadhan waxa sababta ku dhimatana waa doonana inaad noo caddaysaan subaxii markii la gaaray balli baan u tegey balli farmashiishaan tegey waxaan ku yidhi balligu saasaa dhacday arrintaas xal dhacday musiibadaasaa dhacday marka waxaan rabnaa in naloo baara gabadhaasay ku dhimatay balli waa joogay markaasuu wuxuu wacay agaasimaha isbitaalku wacay aniga balligu wada fadhina kaasuu agaasimu hadduu imaanaya sidaasaan isbitaalkii maxaa kalifay adiga inaad tidhaahdid halala baaro matuun baa qaltay maya qofka dhinta waa la baara waxa ku dhacay baa la baara sooma dhaawac ma ku aragtay xumadda markii aad qaadaysay dhaawacaas waa ku arkay gacmahaasaan ku arkay iyo cunaha xagtima kaga yaala markaasaan anugu ma weydiisay cidda u geysatay dhaawaca yaan weydiiyaan dadkii meesha joogay oo ku wacay eedaysanaha koowaad oo adiga ku soo wacay dadkii waxba ma weydiino isbitaalkii baan ula cararay baan maada waraysan maana waraysan waxaan ku dhacay markaan eegi waxay tiri canjeelay cuntay madaxaan iga ayaa waseexanayaa bay tiri intaas xaaska hore ii sheegtay xafiiska xiraalinta gobolka mudug cabdicasiis oo qareen u ah eedaysane hodan wuxuu codsaday in la siiyo muddo ku filan taasoo uu kusoo diyaarsado difaaciisa iyo caddaymaha uu isku difaacayo uu ku difaacayo muwakilkiisa muddadaas oo ah 15 beri maxkamaddu waxay kiiska muddaysay maalinka isniinta oo ku aadan taariikhdu ay tahay 24-ka bisha 11aad qareen waa maqlaysaa soo diyaarso maalinka difaacaaga waxay siisay 3 beri muddo shareecaha sidoo kale wixii caddaymaha oo u dhiman qareenka eedaysanaha labaad isagana waxaa la yidhaahdo maalinka ayuu kusoo talagelayaa fadhiga maxkamaddu maalinka ayuu ballansan yahay 24 bisha 11aad 2025